صعب القيبتان waxaanu gabi ahaanba ku eegi doonaa sagaalka qabiil ee ugu dagaalyahansan guud ahaanba qaaradda Afrika. Marka la eego taariikhda qadiimiga ee qaaradda Afrika, waxaa jira qabiilo ballaaran oo inta badan lagu yaqaano inay yihiin dagaalyahano, dagaalkooda u adeegsada inay isballaariyaan iyo inay is ilaaliyaan intaba. waxaana qabaa'ilkaasi inta badan ay adeegsadaan hub iskugu jira mid casri ah iyo mid maxalli ah oo ay iyagu samaysteen intaba. haddaba waa ayo marka guud ahaanba la eego qabaa'ilka Afrika kuwa ugu sii dagaalyahansan, taasoo ah su'aasha in badan la isweydiiyo. haddaba aanu eegno sagaalka qabiil ee ugu horeeya marka la eego qabaa'ilka ugu dagaalyahansan qaaradda Afrika. waxaana warbixintan qoraysa warbaahin kala duwan oo caalami ah. kaalinta koowaad waa Soomaalida, qabiilka ugu halisan Afrika waxaa noqday Soomaalida. warbixintu waxay sheegaysaa in Soomaalidu shaki la'aan ay tahay midda ugu xoog badan qaaradda Afrika marka qabiil loo eego, iyadoo wax lagu cabirayo dhinaca dagaalyahanimada iyo xeeladda dagaalka. waxyaabaha taariikhda Soomaalida ku jira waxaa kamid ah in ay muddo dheer xeebaheeda kala dagaalamayeen dalal lahaa ciidan badeed xoogan sida dalka Portugal. waxa kale oo taariikhda ku jirta in xirfadda military ee Soomaalidu ay keentay in waagi loo aqoon jiray Land of Bounty ay ciidan xoogan u direen xagga iyo Masar, kuwaasoo ka adkaaday dadkii qadiimiga ahaa ee loo yaqaanay Hittites. Soomaalida ayaa sidoo kale noqotay qabiilka ugu horeeya Afrikaan ah ee ka qayb galay dagaal dhinaca badda ah, iyagoo weliba axadiyadii dhexe ee loo yaqaanay medieval period sidoo kale noqday qabiilka ugu horeeyay ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee adeegsada hub casri ah, kaasoo ay ku weerareen dhul badanna kaga qabsadeen dalka Ethiopia. nasiib xumo, Soomaalida geesinimada ay leedahay maanta dhulka maqana kuma xoreysan, dhulka ay leedahayna kuma haysato. waxaana sababta badiyaa lagu sheegaa dhaqanka badwiga ah oo u diidaya inay inta sawirka weyn eegaan ay nidaam dhexe oo adag dhistaan si ay u noqdaan hal qabiil oo quwad weyn, halka ay haatan ku qanacsan yihiin inay noqdaan qabaa'ilo yaryar oo qadarkoodu bisado aan wax badan dhaamin marka caalamiyan dibadda laga soo eego. laba, Nuubiyiinta. qabiilka kaalinta labaad ku jira waa qabiilka loo yaqaano Nuubiyiinta. tacticada ama xeeladda dagaal iyo quwadda ay leeyihiin Nuubiyiintu waa midda keentay inay qabsadaan boqortooyinkii yaryaraa ee u dhawaa, kadibna ay aas-aasaan boqortooyada qadiimiga ah ee loo yaqaano Kush Kingdom, taasoo ahayd mid ka mid ahayd boqortooyooyinkii ugu waqtiga dheeraa qaaradda Afrika. boqortooyadii Kush Kingdom waxa ay lahayd awood ay iskaga caabisay dad badan oo kaga soo duulay dhinaca bariga dhexe, waxaana sidoo kale ahayd boqortooyo xoogga iyo xadaaradda ku darsatay barwaaqo iyo baraare ay ku noolayd, waxaana xitaa mar qabsadeen dalka Masar. waxaa sidoo kale Nuubiyiinta lagu yaqaanay in ay iska celiyeen carab kaga soo duushay dhinaca iyo bariga dhexe. saddexaad, Zuluga. qabiilka Zulugu waa mid ka mid ah qabaa'ilka ugu caansan qaaradda Afrika guud ahaan, sida la ogyahayna waa qabiilka ugu ballaaran gobolka koonfurta Afrika. qabiilka Zulugu waxay awood u leeyihiin inay dejiyaan xeelad ama istiraatiijiyad military oo aan caadi ahayn, waxayna xitaa mar lahaayeen ciidan ballaaran, iyadoo ay awoodoodu inta badan ku tiirsan tahay khidad ama xeelad ay degaan oo ku saabsan in ay qabaa'ilka ku hareereysan ay kooda ku biiriyaan halkii ay ka burburin lahaayeen. weliba intii lagu jiray halgankii gobonimo doonka ay kula dagaalamayeen gumaysigii Ingiriiska, waxaa la sheegay in ay wacdaro ku dhigeen tiyo aanay haysanin hub casri ah sida Ingiriiska, balse ay ku tiirsanaayeen mid maxalli ah oo ay iyagu farsameeyeen. taasina waxay caddaysay ayay warbixintu leedahay awoodda iyo dhiiranaanta qabiilka Zuluga. afraad, Berberiyiinta. qabiilka Berberigu waxa uu ka mid yahay qabaa'ilka ugu geesisan uguna ba'an dhinaca dagaalka marka la eego qaaradda Afrika, waxaana weliba ay caan ku yihiin inay qabsadeen dalka Spain oo ku yaala koonfurta Yurub, inay ka adkaadeen boqortooyadii Roomaanka oo isku dayday inay kusoo duusho, iyo inay sidoo kale iska celiyeen oo iska caabiyeen boqortooyinkii qadiimiga ahaa ee Persia. Berberiyiintu waxay lahaayeen ciidan awood leh, waxaana isku ballaariyeen dhulal badan oo ay ka dhiseen boqortooyooyin iyo nidaamyo, iyadoo xitaa la sheego in dad badan oo ku nool galbeedka Afrika ay diinta Islaamka sida kusoo geliyeen. waxaanay sidoo kale awood ku lahaayeen badda dhexe ama Mediterranean Sea. la soco qaybta labaad. waxaan ahay Maxamed Xaaji, Hadal Same TV.